tan iyo burburkii kadib dalkeenna waxaa nolosha la daalaadhacayay dad badan oo ay soo wajahday duruufo adag oo nolosha ah kuwaas oo badankood waayay cid garab siisa waxaana hubaal ah haddii ay heli lahaayeen garab istaag inay noqon lahaayeen kuwa waxtara dalkooda iyo dadkooda dhalinyarada aan u naqaan darbijiifka waxay ku dhibaataysan yihiin magaalooyinka dalkeenna waxaana soo wajahda hoy la'aan cunto la'aan iska badaa waxbarasho iyo wax la mid ah kusii darso waxaa soo wajahda dilal ay u geystaan dadka kale garowe oo ay ku nool yihiin carruur badan oo darbijiif ah oo aan haysan daryeel iyo hoy toonna ayaa xildhibaano ka tirsan dowladda hoose culimaaudiin iyo dad shacab ah waxay xareeyeen 48 ka mid carruurtaas waxaana loo bilaabay qur-aanka kariimka ah maadooyinka maadiga ah waxayna helaan jiif iyo cunto iyo daryeel kale oo uu ka mid yahay caafimaadku maanta waa faraxsanahay istuula liiteen wax kasta yeeshin wax kasta tar wax kasta qolteen ma jiifanaan buuq ma sameyn anoo oo caay waxa rabnaan biyo wax kasta sharaab waxa rabna anuun rooc mata waxaan leeyahay Soomaaliyaasha tuli waan maanta waan islaamiya hooye hoteela naxariista aabe la jooga waxbarasho marka aan heer aan gaaro oo waxbarashada aan dhamay aan ku imaanaale boosaasad weeyda jirta ina u tagay intii kale aan maro laakiin meeshaan oo qanacsana ina wax ku bartaan ku raa cunto wax walba waa helna oo qabeys waa helna oo dhar waa helna oo kubad waa helna waxaana ma maqan mana hadaa lacag aan hooyadeen iyo aabeen hadayna meesha ma nii saarna waa maya dheena meesha diinta islaamka oo ku baranayna meel xun baa ku jirna qoolay bilaa caawdina darbi aan seexan jirnay iyo cunno la soo reey waa cunno jirnay waa isdil dino nawriyaasana waxaan soo daaray had alxamdulillah ma raxmana maqno santuqta tugunona waa cununa caawna aan faantay wixii rabnaa nolol suubinooya ilaahay baan u mahadcelinayna kasoo waxa u mahadcelinayna islaamkii xaggaana keenay oo noo danqaday inaan wax barano aan cunno aan cabno marka hore waxaan ay dhalinyaro oo magaalada ku jirtay hadana oo darbijiif ah oo magaalada si xun ugu jirtay oo islaamkiina dhibi jireen oo anaga dhaxdeena is dhibi jirnay ugu dambeyntiina hadeertaan dad muslim baa noo danqaday oo xaggaana keenay waxbarashadeena cunadeena jiifkeena hooygeena shanteena waqti inaan tukano aad iyo aad baan dadkaas ugu mahadcelinaynaa dhammaanteena sheekh maxamuud xaaji yuusuf ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay garab istaagga carruurtan iyo siday mustaqbalka naftooda iyo dalkaba saameyn ugu yeelanayso awal amwaad bay ahaayeen dadkan waxaa yeelay dad darooga cun ah waxun ku nool darbijiif ah mustaqbalkooda madow yahay xaq bini aadan uu leeyahay iyo xaq ilaahay uu leeyahay midna aan ilaalin bay ahaayeen maanta laakiin waa dad nool oo noolaaday waa wareysanay waa dad muslimiin ah ilaahay bay yaqaaniin rasuulkiisa yaqaaniin sallallahu alayhi wasallam tawxiidka ayay ku wada dhawaaqayaan diinta islaamka inay jecel yihiin bay noo sheegeen dad ilaahay yaqaan inay yihiin dadka qaar baa waxa dadka meelahaas jooga inay yihiin dad dhintay oo aan ilaah aqoon arrinta waxa kama jiraan dadkan waa dayacmeen laakiin waa dad wali qalbigoodu nool yahay oo badan baa ku jira marka hadda wareysanay waa la yaabnay runtii sida ay diinta u jecel yihiin sida ilaahay u jecel yihiin sida nabiga u jecel yihiin sallallahu alayhi wasallam markii hadda nabiga la soo qaado kulli waa ku salinaya waa kuwaas waad arkaysaa marka waxaan boohinayaa dadkaas in noloshooda iyo waxbarashadooda iyo in gacanta lagu hayo laga wada qayb qaato waa waajib diini ah waliba dawladda wayna ognahay oo dhaqaala ku filan ma hayso intay haysay baa ka baratay aysan ku wada filayn dadka tujaarta ah oo gacanta wax ku haya waa inay dadkan biilkooda waa inay meel saaraan xogayaha dowladda hoose iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ayaa faahfaahin ka bixiyay carruurta la xareeyay waxayna bulshada u jeediyeen inay ka qayb qaataan sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa arrintan waxay soo bilaabatay ilaa hadda 3 bilood 4 bilood baan soo wadnay golaha deegaanka iyo maayarka iyo xogayaha dowladda hoose arrintan aad isugu xilsaaday kadib markii cabashadii shacabka iyo dhibka ay ku jiraan dadkaasi aanu aad iyo aad u aragnay gorfayn badan iyo meelo badan inaanu siyaalo isku tusaalayno ugu dambeyn waxaan ku guuleysanay inaanu beerka u dhigno oo aan arrinta go'aan ku qaadano macadka intaan leeg inaanu raggaan aan ku soo bilowno
aad iyo aad baan ugu mahadsannahay cid ugu mahadcelinaynaa ciddii ka qayb qaadatay ugu horeeya sheekh Axmed Daahir oo macadkan iyo xaruntan lagu wareejiyey ganacsatadii kala duwaneyd ka qayb qaadatay ciyaalka halkaan ay ku xareysan yihiin caawa waxaan u maleynayaa 4 habeen ay ku xareysan yihiin caawa ku 4 maanta ku 4 waxa loo bilaabay waxa la sameeyay caafimaadkooda dhan waa la hubiyay oo waa la check-gareeyay clearance baa la wada mariyay iyagoo dhan screening baa loo sameeyay qaybtii xanuunsanayd dhakhtarka weyn isbitaalka la geeyay lagu soo daweeyay qaybo kalena waa jiraan oo ayagana daweyn yar yar u baahan waxa u bilowday quraankii iyo waxbarashadii asaaka u bilowday oo loo bilaabay macallimiin baa loo keenay quraankiina oo u bilaabeen iskuulkiina oo u bilaabeen noloshoodii kalena insha Allah waa arki doontaa stoorkooda iyo meelaha jiifsadaan iyo meelaha ay tagaan iyo seexdaan dhammaantood waa arki doontaa goobaha waa mari doontaa